ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta Shucayb agaasimihii guud ee hore ee komishinkii tamarta shirkadda ku guuleysatay qandaraas ee Buyuur Dusheen uu hogaaminayo maxamed liibaan shirkadda beneficiarka ah ee Awdal Electricity Company oo iyada meesha fadhida xildhibaanada golaha wakiilada oo ugu horeeyo gudoomiyaha guddida tamarta maxamed Cismaan Liimo qolada injineerka wasaaradda saaxiibkay Axmed qolada kale tiimka kale wasaaradda kamid ah mashruuca hogaaminaysa Cabdifataax ugu horeeyo iyo bahdiina kaleba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf weyn bay tahay inaan idinkala soo qayb galo xafladdan saxiixa ee maanta runtii waxaan idinku mahadnaqayaa dhammaantiinba wasaaradda gebi ahaanba shaqada xoogganeed qabateen iyo dhabar adayga aad u yeelateen mashruucan transparentka sidii aad uga shaqayseen wasaaradda eed ugu babacdhigteen inuu mashruucan hirgalo waxaa kaloon aad iyo aad si gaara haddana mar labaada shaqaalihii wasaaradda ee ama injineera ahaadaan ama projectiga mashruuca ahaadaane say ugu dhabar adeygeen iyaguna iyagoo qayb wasaaradda ka mid marnaa ee ay mashruucan inuu hirgalo ama uu maanta halkaas soo gaaro ilaahay inta ka sokaysa idinkaa lahaa oo ay wasaaraddu idinku hogaaminayso wasiirkiina maanta shaqo qaran uu inaga maqan yahay marka mahadnaqaa dabadeed waxaan filayaa mashruucan inuu wax ka tari doono nolosha iyo isbeddelka dadka ku dhaqan magaalada Boorame oo ay koronto jaban inay helaan marka energy-gu jabana wax kasta ay related la nolosha bani'aadamka oo infrastructure ku mid yahay oo nolosha faqri saarka iyo wax fara badanba saa uu agaasimihii guud hore u sheegay komishinka iyadoo mashruucan weli hirgelin oo aan waqtigiisii la gaadhin ayaan shirkadda Awdal Electricity Boorame ugu mahadnaqayaa siday korontada u sii jabisay inkastoo shidaalkiina haddana isbedelay weli barayskii laguma dalicinoo kii horaa lagula galgalanayaa marka taana waan ugu mahadcelinayaa hadal ku dheeraan maayo aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu